moogtaa kafeega ugu yaabka badan uguna qaalisan dunida inuu ka yimaado saxarada xayawaankan waxaa la yiraahdaa Kevin waana xayawaan yar oo habeenkii firfircoon wuxuuna ku nool yahay qayb mid ah Aasiya kifidka wuxuu cunaa miraha kafeega markaas ayuu bislaadaa laakiin miraha si buuxda uma dheefshiido markii mirahaas ay maraan calooshiisa mindhicirihiisa dheefshiidku waxay bedelaan qaar ka mid ah dhadhanka iyo urta miraha marka uu saxroodo xayawaanka miraha kafeega ayaa laga soo aruuriyaa saxradiisa si fiican ayaa loo dhaqaa loo khalajiyaa kadibna loo dubaa kafeegana waxaa loo yaqaanaa Kobe Luwak waxa xiisaha leh ayaa ah in dad badan sheegeen inuu leeyahay dhadhan ka jilcan oo ka duwan kafeega caadiga laakiin halkan ay sir kale ka jirtaa Kobe Luwak aad buu qaali u noqon karaa sababtoo ah habka soo saarka waa mid gaar ah laakiin waxa sidoo kale jira murnooyin fara badan oo kala duwan ku saabsan daryeelka Kavi gaar ahaan markuu xayawaanka lagu haayo khafis ama meel ama teed ama shabakh ama meesha lagu xanaaneeyo xayawaankaas soo saarka kafeega badan sidaa darteed marka aad maqasho kafee laga soo saaray saxarada xayawaanka ha u maleynin inaad saxarada lafteeda ay cabayso ama saxarada inaad cabaysid waxaa la isticmaalaa miraha kafeega ee xayawaanka cunay kuwaas oo la nadiifinayo oo la khalajinayo kadibna la dubayo su'aashu waxay tahay adiga ma cabi lahayd kafeega aad og tahay inuu xayawaan soo maray ama saxaro xayawaan inuu yahay